السكوت علامة الرضا. ما أنت اللي كان أقبل ما يديك يا شيخ در يرجع لمت كوتر هذا بدن لكن كان أقبل ما ينام مصنعتان وحلاس عنود كذا عي هذا كان مستان الدين إذا ويدين يسود دم بمجرته. ماركت النقالة والسوق باع مشترى عندنا كمارمين إذا أنت بديتي السخير باكوتشرة مد نقالية مد الدنيا مد ولي بو كوتشرة هدي إيمان الراعنا خير بو كل ما لكن وحنا لقى أقبلين كاسنا إنه سدي ساس أود يسيدو فرعون هذا دتك لا جوجينا فراعين نقدان هامان إيه جنود دي سي أي نقدان لقى أقبل ما يكنا أتكريت دو كأمستي تا لقى يلمي تبدأ بنا أديك إيه تيم كاجا ريروقوي واحد مو صوماليا وإذن دقيسنا إيه والدين إذن كدقيسنا مش إلهي وحلاي مركز دتك كلا تجي وعقل حمو شرعي قبك كاله مركز شرعي قبك تمادو وعقل اللي تعقل غاينا قيبية مدحوينه يعيدن كيسي يمامل كيسي ملأ هيد وحكوت المامي شيخو إنا يين فراعين فرعون يملئيسي يعيدن مديسي إنا المدين شيخ مصطفى وحكم دي علماء درير وقوي معترف كا محترم كا أمد الصومالية أسو استاغيسو ولو كالسونية وأنا شعلناها لكن ظلم بقاس لبعتضع ونكاس إن أديركود وقيسيني كامسا لابا متكود بس بيتصيص إنا علماء السلطة كمتاي علماء السوقي آشيكتي أو مسلحيين تاها أو مصلحة دا إلى شنيسي شخصية إياه إنا تقبيالد إياه تلنمو إياه تاغيرو آت فكر كاكو قبتد أتكو أمسان تاي هذا كل داعي مصطفى عدوها دير هذا وبغيها وحالي مصطفى باسبور باليرا كبح ودنك وحاقول لي تو غاري يوم وحانوغناهي علمada hargeysa jooga ama ha ku qanacsanaaden laanta ama iska daayeen niman taajiriin oo xoolo badan haysto oo dhaqaale badan haysto ganacsiga ku jira way maybe inay u baqayaan maslaxadooda shakhsiga sheekhu intuu ku eedeeyay culimadii ee xamar joogtay oo xilliga siyaad bari la joogtay ama xamar ha joogtay ama meel kale ha joogtay dawladda siyaad bari ka aamusnayd waa inay maslaxiin علماء السلاطين بين قدر كوانو نوالم شيخ مصطفى وحكم دي علماء درير وقوي معترف كا محترم كا أمد الصومالية أسو استاغيسو ولو كالسونية وأنا شعلناها لكن ظلم بقاس لبعتضع ونكاس إن أديركود وقيسيني كامسا شيخ مصطفى عندما يستعجل لو ريجيني يولا يصدري مرفقنا أنا هين مردوة وحكاد لي سياد بري رحمة الله عليه دولة ديسي وحليه سياد بري ملئيسي باشري مالين دم بشريين تي لباد بشريين تي صدح 72 hours وحيكون دي عكري وين موقف إني قاتان مسألة إن لقلوه إن جامعة عربتا إيه إن لقبه قولك هلا لقلوه مركي دمال وحان لو قاهد لواهي وقوان لو قاري واهي مدحوينها ميشو جرى اللي أقول نمبا الشيغي ويور مدحوينو حقيت جرى قور ليسكو وريري ساوحا الوير مدحوينو دكا عربتو جرى مركاسو يرى عربتا إنو راعينا أرنتاسا لغو سعبي inta markuu sheegay wuxuu ka hadlay sheeko dheer oo kaga sheekeynay fircoon madaxweynihii iyo ciidankiisii iyo maamulkiisii mala ahayd wuxuu ku tilmaamay sheekhu inay yihiin faraacin fircoon iyo mala'iisii iyo ciidamadiisii inay la mid yihiin waxaan leeyahay sheekh mustafa labo arrimood midkood waa laga aqbalaya mid saddexaad laakiin laga aqbali maayo labada laga aqbalaya maxay yihiin kow inaad tiraahdi fircoonkii hore sifaadkii uu lahaa mid la mid ah buu kanuna leeyahay kana waa fircoon bitaanadiisuna waa bitaanata suu dadka culimada u ahayna waa culamaa usulta taajiriinta isaga la shaqeeyaana waa nafciyiin intii aa ku sheegtay qoladii hore inaad kuwaana ku sheegtay qodobka labaad inaad taas raaligelin ka bixiso tirahayd waagii baan khaldamayo dembi baan galayo qoladaas iyaga ah wixii aan ku sheegay khalad bay ahayd laakiin waxaan laga aqbalayn kaasna inuu sidiisaas aa u daysido fircoon ahaado dadkii la joogayna ay faraacin noqdaan haamaan iyo junuudiisa ay noqdaan laga aqbali mayo kana aad ka reebtid oo ka aamustid taa laga yeelmayo dib dambana adiga iyo tiimkaaga reer waqooyi wax dambe oo Soomaaliya oo idin dhageysanaya oo diin idin ka dhageysanaya ma jirto qadiyadaas waxaan u leeyahay Muuse iyo Maxamed Siyaad Barre waxay ka siman yihiin arrin waxayna ku kala gedisan yihiin arrin
arrinta ay ka sameeyeen waxay tahay labaduba dad shacab ah oo ka soo horjeeda fikirkooda iyo aragtidooda oo cuqaal leh oo shacab leh oo aqoon-yahan leh oo dhalinyaro leh oo haween leh oo carruur leh bay rabeen ama bay labaduba caburiyeen oo waxay u isticmaaleen xoog taa waa ka siman yihiin oo laayeen waxay ku kala duwan yihiin dowladnimada soomaaliyeed oo iswadatuukaasu ilaalinayay kanu dowladnimada soomaaliyeed buu faas u sitaa oo kala jaraya kanaa xun marka labada fircoon kanaa liita oo wuxuu ku xun yahay soomaali buu kala qaybinaya oo kala jaraya kala qaybintuna waa qodobka aad ka soo horjeeday cajalada gudaheeda oo ina yareeya iyo qaybinta ay ahayd inaad ku aamusto marka oo aadan ka hadlin labay mid ku tusaysaa laba midkood bas bay tusaysaa inaad culamaa u sulta ka mid tahay iyo culamaa u suugii aa sheegtay oo maslixiyiinta ah oo maslaxadaada aa ilaashanaysa shaksiga ah iyo inaad qabyaalad iyo tolnimo iyo taageero aad fikirkaa ku qabtid aad ku aamusan tahay assukuutu calaamatu rida maanta laydinka aqbali maayo adiga iyo sheekh diri iyo ragga la midka oo tirada badan laydinka aqbali maayo inaa aamusnaataan waxaa laascaanood ka dhacaya haddaad ka aamustaan cid diin idin weydiinaysoo dambe ma jirto reer waqooyi intaasaan lehay wadaadadii nairobi kuwii muqdisho kuwii boosaaso iyo culimadii jubbaland kuwii koonfur galbeed intuba waa aamusan yihin iyo kuwii galmudug iyo hirshabelle intuba waa aamusan yihin wadaaddo waxaa idin leeyahay horay waxaa yaraanaysay marba marka ka dambeeya misdaaqiyadda iyo xurmada iyo kalsoonida lagu qabo culimada waxaa yareeyey dagaaladii ahliga oo aan ka qayb galnay dhaawac baa ina ka soo gaaray misdaaqiyadda xaggeeda ah khilaafkii innaga dhexdeenna ahaay oo aanu culimo ahaan iskhilaafnay dhib baa ina ka soo gaaray waxaa ina ku xigtay inaan dagaaladaas galno waxaa ku xigtay al-shabaab iyo ahlu sufa kuwii la dhihi jiray ahlusunna waljamaaca la baxay oo galmudug ka jiray oo iyaguna qoryaha qaato dowladda iyo diinta iyo dalkaba la dirirayay labadaa qolo culimada iyo wadaadada dhulkay dhigeen waxay maraysaa inaan wadaadada ixtiraam badan loo hayn haddaad ku darsataan dulmi cad oo indhihiinna hortiinna maraya inaad ka aamustaan culimooy saa u dhantihiin waxaad ka dhacaysaan indhaha ummadda soomaaliyeed waxaad noqoteen raciyad baad noqoteen meeshaad ka ahaan lahaydeen qiyaadada iyo hoggaanka aad ahaan lahaydeen ummadda soomaaliyeed waa dad muslimiina waa dad diintooda jecel kuna kalsoon diintooda waa dad u hoggaansan ahludiinka muujiya mowqifkiina caddeeya dulmiga dhacaya fataawo sharciga ka soo saara maxaa idinku dhacay kuwiinii qurbaha jiray maxaa idinku dhacay mustafa haddii yidhahdo waa baqayaa waxaan leeyahay mustafa baasaboor baa leedahay ka bax waddanka waxaa ugu liito oo ku gaaraya waxaan ognahay culimada hargeysa joogaa ama ha ku qanacsanaadeen laanta ama ha iska daayeen niman taajiriinahoo xoolo badan haysto oo dhaqaalo badan haysto oo ganacsata ku jira wey maybe inay u baqayaan maslaxadooda shaksiga shiikhu intuu ku eedeeyey culimadii ee xamar joogtay oo xilligaa siyaad barre la joogtay ama xamar ha joogtay ama meel kale ha joogtay dowladda siyaad barre ka aamusnayd waa inay maslixiin yihiin culamaa u salaatiin bay noqdeen kuwaanoo dhan waa lamid intaas ayaan wadaadadana ka oranaya kuwii nairobi joogayo masaa'ilka iyo hargeysa iyo burco iyo oo masaa'ilka muqdisho iyo boosaaso iyo meelaha hadda aan sheegay oo dhan wadaadadii joogay oo mas'alo social ah oo minor ah yani xaaraan ha ahaato gabar baa isqaawisay heesaa la sameeyey waa fasaad laakiin fasaadkaasi dhiig la mid maaha nabigu sala allah alay slam wuxuu inoo sheegay laa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yaqtarif daman xaraama qofka mu'minka ay ka suuli mayo inuu ilaahay naxariistiisa iyo rajo leeyahay ilaa uu dhiig xaaraana daadiyo wuxuu nabigu inoo sheegay sala allahu alay wasalam kacbada lazawaalu dunya wamaa calayha oo kacbada ku jirto lazawaalu dunya wamaa calayha ahwanu cinda allahi min safki dami imri'in muslimin bigayri xaq oo kama qaala sal ll ly slam nebigu wuxuu inoo sheegay dhulkan oo dhan iyo waxa saaran oo la halaago oo la rogo baa ilaahay agtiisa ka fudud oo ka sahlan qof mu'mina oo muslina oo dhiiggiisa gardarro lagu daadiyo man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanama qatala annaasa jamiica ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala
qofkii dila qof gardarro ku dila xaq darro ku dila waxaa laascaana ka socdoo kala sameeya hal qof weeyaan intaa iska daa la laynayo oo labada dhinacba iska daa wuxuu la mid yahay ummadda ilaahay abuuray khalqigiisoo dhan qof baabaashay bini aadamka waxa la yidhaahdo dhan qof rogay buu la mid yahay maxaa uga aamusantihin maxaa dulmiga intaa lagu maxaa u qaadan weydeen qiyaada xukun iyo maamul iyo liid oo aad u dhihi weydeen haddaad joojin weydid dagaalkaan soo gelayna haddaad joojin weydid annagoo wadaadaabaa dagaalka soo gelayna annagaa hogaaminayna annagaa u hiilinayna dadkaa shacabka oo miskiinka oo madluumka ah unsur akhaaka daaliman aw madluuman kuwa madluumkaana waad u hiilinaysaa kan daalimkaana gacantaad qabanaysaa maxaa idiin diiday inaad tidhaahdaan haddii aad joojin weydid muusow waa isugu imaanaynaa meesha war baa laydinka fadhiya xoogaa baa la camcamiyey ninka la yidhaahda idris xaas baa u degan ma maslaxaddaasa ilaashanaysaan xaaskaaga meesha hartaa geysan kartaa dhulka ilaahay waa ballaaran yahay haddii lagaa masaafuriyey ma waxaad bilaabaysaa mashxarad adoo mashxaradayaan ku arkayay yaama dhexe dulmigan haddaa ka aamustaan dadka indhahoodaad ka dhacaysaan macnana yeelan maysaan waxaa la rabaa qofkii daalim ah meeshuu raba ha joogo isla markaas shacab iyo dad masaakiina oo faramaran kuwa dhagax tuuraya xabad la dhacaya inaydnaan ka aamusin ee aad dulmiga radidaan ka hor istaagtaan dadka dhiiggiisa la daadinayo inaad sulda iyo quwad yeelataan bayaan cad inaad soo saartaan idinkoo culimada ah weliba aad tihaahdaan haddii aad joojin weydid dagaal baan abaabulaynaa kaadhan ah ciidamadayadaan soo urursanaynaa shacabkao dhan baad disbaaj ku samaynaysaan jihaad weeye meeshaa waxa ka socda waana jihaad ha la galo kulli ha la galo isagaa markaas wuxuu noqonayaa gacan qof walbana waa idinka baqi lahaa oo mufsida oo daalima laakiin mistaaqiyadiinii maalinba maalinta ka dambaysa hoos bay u dhacaysaa waray sida isu dhaama reer laascaanood oo is xoraynayaan taa waan ogahay waana isku filan yihiin laakiin idinku ha dhuminina soo raaca waa idin jeclahay